hadda mar dambe aniga afaare aan leey ka soo hadashid inta waxood igu sameeyay on telefonkii ugu jiro ayaan soo bandhigayaa kulanti wacan wanaagsan dhamaantiinba idilkiinba idinkoo noo xiisa qabay anagoo idin helan waa xilligan hawada ku kulmi jirnay isla markaana halkan aan idinku soo gudbin jirnay mid kamid ah muuqaalada aan jecelnahay dadweynaha inaynu la wadaagno aan ku bilowna dagaal hor leh ayaa ka dhax qarxay lamaana hore nolosha wadaagay balse calafku kala dhaqaajiyay rasmi rays ayaa si adag uga falcelisay muuqaal uu soo duubay saygeedii hore farxan yare kaasoo ku saabsan ilmo yar oo rasmi ay ku andacootay inay iska dhaleen iyada iyo ninkeedii hore inkastoo ay gadaal ka beenisay maadaama bay tiri ay maalinkaasi ku beegneed 1 Abriil oo ahayd maalinta dabaalada ama maalinta nacasiinta waxay sheegtay in xilligii ay soo gudbinaysay muuqaalkaas in ujeedku una ahayn in siigeedii hore ay daneynayso weli oo ay jeceshahay balse baraanka ay ka ahayd waxa kale oo inta raacisay inay doonayso inay ku maadeysato farxan yare oo ay cashir u dhigto fanaanada reer Nairobi rasmi rays ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday hagardaamadi loo geystay waxaana markii ugu horeysay ay soo bandhigtay tacaddi ballaaran oo kula kacay saygeedii hore farxan yare fanaanadan ayaa muuqaal dheer oo ay iska soo duubtay xalay waxay ku sheegtay in farxan yare uu ka soo tuuray jaraanjaradii guriga ay degnaayeen sidoo kale uu aad u garaacay telefonkiina ay wadatay uu ka jajabiyay rasmi rays ayaa sidoo kale sheegtay in iyadoo aad u dhigbaxayso uu geeyay boosteejada magaalada Boorame kadibna ay soo aaday Hargeysa oo muddo 20 maalmood ay ku dhigbaxaysay isbitaal ku yaala Hargeysa sidaasina uga saqiiray ilmihii uurkeeda ku jiray sidoo kale rasmi rays ayaa sheegtay in ay hayso muuqaal muujinaya jirdil xoogan oo uu geystay saygeedii hore farxan yare ayna soo bandhigi doonto rasmi rays ayaa kontroolkii lumisay kadib markii farxan yare uu soo bandhigay cadeymo ku saabsan canug ay la xiriirisay farxan kaasi oo ay dhawaan sheegteen iyadoo ay dhashay isla markaana ay wada dhaleen farxan yare ayaa iska fogeeyay sheegashadaasi waxaana uu soo gudbiyay codad kala duwan oo ay ku jiro cod hooyadeed oo ay wada xiriireen isla markaana dadweynaha ugu xaqiijinayeen rasmi aynan wax canuga dhalin rasmi ayaa dhankeeda waxa ay siyaabo kala duwan uga hadashay furiinkeedii iyadoo ka warbixisay waxa sabay inay kala tagaan iyada iyo saygeeda haddaba sidee u aragtaa arrintan ma la isdhihi karaa jacaylka baraha bulshada aan ka daawanno waa matalaad fadlan fariintaada inagu reeb qaybta hoose ee commentiga like saar muuqaalkan haddii ay tahay markaa kugu horreysay soo booqo janalkan Maamuus Media Production waxaad saartaa subscribe sidoo kale waxaad nagu dhiirigelisaa in aad furato gambaleelka si aanay ku dhaafin muuqaaladayada dambe mahadsanidin